madaxweyne ku-xigeenka Jubbaland wasiirka xildhibaanada heer federaal iyo heer stateba taliyaasha ciidamada gobolka ee qaybooda kala gedisan iyo shacabweynaha ragga gabdhaha dhalinyarada ciidamada qalabka sida bahda saxaafadda mar labaad salaanta islaamka aan ku salaamay assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu war murtiyeedka noola soo jeediyay waan qaadan dib ahaanba haddaynu nahay waa sida dhaqanka ee Soomaaliyeed waxaan ka shaqayn doonaa inaan documentation helno oo cid kasta oo ku xadgudubto deegaankan iyo bulshada dhexdeeda inaan maxkamad soo taagno anagoo wada jir ah insha Allah xeerkaas waa la qori doonaa dilaa yiraahdo waxaan rabnaa marka amniga inaan ka qayb qaadano haddaan nahay odayaasha iyo dhammaan shacabweynaha degmada Luuq amniga waa inaan gacan buuxda aan siino maamulka degmada waa in lala shaqeeyo ciidamadan waxaan faraynaa inaysan ku milmin qabiil ay noqdaan ciidamo qaran ay u shaqeeyaan intaana bulshada walaalayaal marka waxa weeye wixii aan soo marnay waad ogtiin dib baan soo marnay qaxar baan soo marnay dad qaali nuga oo waxay hadda ku dhinteen aan la aqoonin baa naga dhintay dad kale aysan naga dhiman nabadda hal la ilaaliyo juhdi badan baa lagu bixiyay waan ognahay 40 casho baa maxay ahayd madaxweynaha waftigu hogaaminahay iyo halkan ay fadhiyaan maanta inta marka waxa weeye waa la soo afjarhayaa dirirta halkan ka dhacday dadkii way soo guriye noqdeen wixii kala noqon way noo imaan doonaan waxaan u malaynayaa cid kasta wixii dhacay inay ka xisaabtami doonto oo nafteeda ay xisaabin doonto marka nin walba gurigiisa nabad ha ku joogo jidka nabad ha lagu maro amniga ha lala shaqeeyo shaqaaqa dambe halkan aysan ku soo noqon bal ahsaanak ilaahay waxaan intaana ka baryaynaa dib dambe inuu ilaahay noo keenin guul iyo mutaana iyo barwaaqo in ilaahay uu nasiyo ya amni waara Soomaaliya mutaana ayada dhamaanteed ilaahay mutaana nabad ha ku soo dabaalo meel walba shaqaaqa ka shidan Soomaaliya ilaahay ha walaaleeyo dirirtan ilaa 92 haysato ilaahay ha naga saara taasna waa duco guud weeye walaalayaal waxa balan noo nabad inaan ka shaqeyno waxa balan noo inaan ayidno dadka mutaana maamulada noo hayo mas'uuliyiinta in la ayido awaamirta iyo ka soo amarada ka soo baxaya iyo sida bulshada isku noolaan lahayd ama uu ku socon lahayd waa in laga shaqeeyo weeye nabadda qofkii wax kama qaban karo inta yadaan nabad haddaan ka shaqeyno wax naga halaabay ma lahan marka walaalayaal waxaan kugu dardaarmayaa inaan samaysan doono xeer aan ku dhaqanno oo aan ku qabanno cidda qaldan qof hadduu wax geysto tuug ah inaan garabno ma aha waa in markii la qabtaa sababtoo ah boqolaal baa ku badbaadaysa nin kasta oo dhib la yimaado sida murtiyeedka hadda ku qornaa asaa lagala xisaabtamayaa qabiil dama lama cayrsan doono tuuggaasaa la qaban doonaa haddii waxa weeye nin baa wax samaynaya ciidankiina ilaa iyo aqbuur iyo airbortkii daasiin iska dhex maraya waxaas mas'uuliyad darro weeye marka madaxda mas'uuliyiinta mutaqaana ciidamada waxaan ka codsanaynaa nimanka taliyaashu ah inay ciidamada ay wax u akhriyaan oo inta cashir la siiyo seminaar la geliyo oo dowladnimada ay shaqeyso inta baan intaana ku soo gaabin lahaa